halkani waa shabakada Kobciya Media Production iyo Alifad Engineer Xasan Maxamuud Faraqle oo uga baratay soo saarinta barnaamijyada iyo casharada kala duwan ee xiiso geliya ku xirnaa kuna soo shabakada Kobciya Media Production. qodobka labaad waxyaabaha soonka jabiya way haddaynu soo ururinno waxaan ku soo ururin karnaa 5 soonka jabisa dii la faahfaahiyo way badan karaan laakiin inaan kuu soo koobaan doonayaa markii faahfaahinteeda loo baahdo waqtigeeda way waxaa koowaad ee soonka jabiya الردة قف دينته إنه كبحوي مسلم بوها وصومنا هدو قالوا ودين تكبحوا صون كواجوي محاكا دالنا إياه هدو إسلام مالين تديبو سو إسلام وصون نقضة مالين تاوقالين ووي شبتي صون كادي ساسدرتين إسلام نمضو شرد بأيدنو أصحو gaalnimaduna way jabisaa hadday dhaxda ka timaado haddayba jirtay markii horena inuu ansaxay diidaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waa inuu qofku kas isaga matajiyo qofku mantag hadduu ka yimaado laba mid buu noqdaa inuu soo dhaafo san iska keenin ama markaa hayn waayo ama yuu isku taxallujinninba inuu hayo ama kadiis baa kaga yimaado inuu soo dhaafo iyo isagu inuu iska doondoono iska keenkeeno hadduu soo dhaafo soonkiisa waxba uma dhimo hadduu isagu iska keenkeenase soonka waa jabaa wuu jabaa macnaheedu waa dambaabtay maaha inaabad xanuunsantooda cudurdaar leedaha dhici karta laakiin soonkii wuu jabayaa wey qofku kas matag saakeen nabigaana saa yidhi sal ly slam qofkii matag soo dhaafaay wax qadaa laguma leh qofka iska matajiyana ha qadeeyo ayuu nabiguna faray sal ly slam qodobka saddexaad ee jebiye soonka waa gabadhu inuu dhiiggii caadadu ku dhaco ama kii umusha dhiiggii caadada iyo kii umusha midkood hadduu ku dhaco ayadoo sooma soonkaasi waa jabayaa iyadoo dembi kuma laha laakiin soonku waa jabayaayo marka hore hadday caado qabto ama umushii dhiiggii ku jirtana kama ansaxo hadduu gadaal kaga yimaada iyadoo soomanaydna soonkaasi waa jaba intaasi waa 3 qodobka afraad waa cunniya cabbitaan toos ah ama dadban cunadii cabbitaanka toosihi waa kuwii laga qaato afka oo meesha caadiga iyo dabiiciga laga qaato haddii qofku wax cuna ama cabbo soonkiis waa jabaya cunadii cabbitaan dadbanna waa wixii cabbitaan iyo cunno ah ee laga qaato waxaan afka ahayn waa sankii biyaha kor loogu jiiday ee dhoonta ku dhaceen ama dhagaha haddayba u duleelaan intii wax lagu shubo ay hoos u dhaadhacaan ama jirka kale meelaha dhiigga ah nafaqada iyo faleebooyinka la ragmariyo ee booska cuntada iyo cabbitaanka garana waxaan leenahay waa cunniya cabbitaan dadban oo toosna afkii caadiga ahaa loogama cunin oo loogama cabbin wixii ay qabanaysay cunnada iyo cabbitaanka afka laga isticmaalayna way qabanayaan iyagana waxaan ku soo ururinaynaa cunniya cabbitaan toos ah ama dadban qodobka 5aad ee soonka jabiyaaye waa gudashada shahwada tooska ah iyo midda dadban shahwada tooska gudashadeedu waa xiriirka gogosha iyo galmada ee rag iyo dumar dhexmara ama xalaal asalkiisii ahaado dad xero isqaba ha noqdaan
ama xaaraan ha u sii dheeraato oo gogoldhaaf ha noqdo, marba hadduu xiriir gogol iyo galma yimaado waa gudasho shahwadii oo toos ah, soonka way jebisaa. iyadoo dadbanna way jebisaayo hadduu qofkii shahwadii isaga keeno si kale, oo waxaa fuqahadii carabigu ay yidhaahdaan istimnaha ama jaldi camiir ay yidhaahdaan, soomaaliduna isigaysi bay yidhaahdaan. qofku hadduu shahwadii isaga keeno fal isagu uu leeyahay, sax galma iyo gogol toosa ma aha, laakiin waa gudasho shahwo oo dadban weeye. sidii cunadii iyo cabbitaankii dadbanaa ay cunnada iyo cabbitaanka tooska ah lamidka u hayeen, ayay middanina shahwadii gudashadeedii iyo galmadii tooska ahayd iyadoo gudasho dadban ah weeye, oo isla macnihii iyo baahidii daboolaysa. saa darteed midda tooska iyo midda dadbaniba soonka way jebiyaan. qodobkaa waxa soonka jebiye ah, waxyaabaha soonka markay jebinayaan 3 arrimood baa la ilaalinayaa, oo ah in la eego qofkii misantaa mid ka mida, shantaa mid ka mida markuu ka dhaco, marka laga reebo xaydka iyo nifaaska iyo riddada iyo diinka baxa, mataga, cunnada iyo cabbitaanka iyo gudashada shahwada. markay soonka jebinayaan 3 arrimood ee soo socdaa waa la ilaalinayaa. mararka qaarkoodna riddadaa soo gelaysaa ee xukunkeeda baan sugnaanaya. 1 qofku waa inuu khiyaarkii ku sameeyo. haddii la qasbo waxba kama jabaan soonka. qasab ku gaarow haddii la yidhaahdo, qasab galmada iyo gogosha ku samee haddii la yidhaahdo, qasab cunno iyo cabbitaan ku samee haddii la yidhaahdo, soonkiis waxba ma jabo ousan khiyaar lahayn. 2 waa inuusan halmaansanayn oo ula kasbi u sameeyo. hadduu cuno oo cabba isagoo halmaansan soonkii, ama uu galmi iyo gogosh iyo xashahwa gudashadii dadbanaydba sameeyo isagoo soonkiisii halmaansan, ama iskaba matajiya isagoo soonkiisii halmaansan, soonkiisii waxba u dhinmi maayaan. oo nabigaa sheegay sala allahu alayh ali wasalam inuu qofkii cunaya ama cabba isagoo halmaansan soonkiisa dhammaystiranaya. qodobka 3aada ilaalinta u baahan qofku waxaan soonka inuu jebinaya inuu yaqaan wey. hadduu sameeyo waxyaabaha qaarkood isagoon u haysanin soonkii inuu ka jabayo, ama wax soonka jebiyaba ay yihiin, soonkiisi ma jabayo. saxaabada nebiga qaar sameeyey xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr, ayay qaarkood sii cuneen oo sii cabbeen iyadoo waagii baryey ilaa ay kala gartaan guri aan nan lahayn labada xariigee madow iyo caddaynka. soonkii soo qadeeyana lama dhihin. isla qodobka waxaa kaloo la xiriira 4 arrimood waan soonka jebin, laakiin dadku laga yaaba inay moodaan soonka inay jebiyaan. 1 waxaa ka mid inaad istoobto, waxaa la mid inaad dhiig iska qaado ama qof kale u shubto, soonka ma jebiyo. 2 inaad qabaysato, haddaan biyo kugu cararin oon afkiiyo kaa gelin sankiiyo hoos kugu dhaadhicin soonkaaga ma jabayo. waxaan soonka jebin in waagu kuu beriyo adoo janaabo qaba, janaaba habeenkii ahayd say dooniba ha ku timaadeen, adoon weli ka qabaysan waaga hadduu kuu beriyo soonku kaama jabo. ugu dambayn, adoo maalinimo hurda haddii intuu riyoodo qofku biyi iyo shahwadii ka timaado, isagoo hurda wixii ka yimid waxuu kas u sameeye ma ahano, soonka ma jebiso. intaasna cashirkeennii 2aad ayaynu ku soo gabagabaynaynaa oon kaga hadlaynay soonku sideebuu ku asaxaa, maxaase soonka jebiya, iyo masaa'il dhammaystir oo la xiriiray. intaan cashirka 3aad isugu imanayno, sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.